xidiga xulka qaranka England iyo kooxda Real Madrid ee Jude Bellingham iyo gacalisadiisa Ashley Castro ayaa qabsaday baraha bulshada kadib sawirro laga soo qaaday iyagoo dalxiis ku jooga jasiiradda Sardinia ee dhacda dalka Talyaaniga. Xidiga qadka dhexe ee kooxda Real Madrid oo haatan 22 sano jir ah ayaa tan iyo bishii July garoomada ka maqnaa kadib markii qalliin garabka looga sameeyay. Waxaa la rumaysan yahay in Jude Bellingham uu sugi doono ilaa bartamaha bisha Oktoobar si uu taan buuxda u noqdo oo uu diyaar ugu ahaado inuu mar kale ciyaaro kubadda cagta. Haddaba waa tuma gacalisada Jude Bellingham ee Ashley Castro. Jude Bellingham waa mid ka mid ah xidigaha Britishka ah ee ugu caansan jiilkiisa, laakiin waxaan in yar ka sheegi doonaa gabadha uu calmaday ee Ashley Castro. Ashley Castro oo haatan 27 sano jir ah balse bisha December ee sanadkan 28 sano jirsan doonta ayaa ku dhalatay magaalo xeebeedka California ee dalka Mareykanka sanadku markuu ahaa 1997. Ashley Castro waa gabar model ah oo caan ka ah baraha bulshada, waxayna in ka badan 600,000 oo followers ku leedahay barta Instagram-ka, halka sidoo kale TikTok ay ku haysato ku dhawaad 220,000 oo raacayaal ama followers ah. Ashley Castro waa agoon aabaheed ku weysay caabuqii coronavirus ee dunida aafeeyey, waxaana aabaheed Castro oo dunida sagootiyey 31 July ee sanadkii 2021 sida ay markaas ku shaacisay qoraal ay soo dhigtay barteeda Instagram-ka. Halkee ayay isku barteen Jude Bellingham iyo Ashley Castro? Sida warbixinadu ay tilmaamayaan, labada lamaane ayaa markii ugu horreysay isku bartay baraha bulshada, gaar ahaan barta Instagram-ka. Goorma ayuu xiriirkooda jacayl toos u bilowday oo la wada ogaaday Jude Bellingham iyo Ashley Castro? Waxaa la sheegay in xiriirkoodu bilowday bishii Janaayo ee horraantii sanadkan 2025, waxaana markii ugu horreysay la arkay iyagoo cunto ku cunaya goob cuntada bisil lagu iibiyo oo ku taala magaalada Madrid. Xiriirkooda si rasmi ah ayuu caan u noqday bilihii dambe, waxaana Ashley Castro la arkay iyadoo la joogta qoyska Bellingham oo ay wada daawanayaan kulan Champions League ah. Waxaa markii ugu horreysay la arkay iyadoo ku sugan qaybta VIP-da garoonka Santiago Bernabeu iyadoo la socotay waalidiinta Jude Bellingham. Ashley ayaa horay xiriir ula lahayd xidigaha basketball-ka ciyaara ee Trent Seaman iyo Lamela Ball iyo sidoo kale aktarka reer Amerika ee Michael Bakary Jordan, laakiin dhammaan xiriiradaasi ma guulaysan. Bellingham kahor inta uusan xiriirka jacayl la bilaabin Ashley Castro waxa uu isna xiriir wadaag la ahaa gabadha modelka ah ee reer Holland ee Laura Celia Falk, laakiin xiriirkaasi waa uu burburay. Ashley waxay shaacisay inay la kulanto weeraro dhinaca internetka ah tan iyo markii ay shaacisay xiriirka kala dhexeeya Jude Bellingham, waxayna codsatay in la joojiyo faafinta waxyaabaha been abuurka ah ee la xiriira nolosheeda gaarka ah.